gobolka awdalna aqoonso garab istaag ciidan qaranka ka socdana sida muuqaalka aad ka arkaysaan waa beesha ciise oo la soo baxday hub tirabeela islamarkaana diyaar u yihiin in mar kale weerar adag ay ka fuliyaan ee gudaha Somaliland gaar ahaan gobolka Awdal Ised oo ay u balan qaaday xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. beesha ciise iyo Samaroon ayay dowladda Soomaaliya u balan qaaday inay siin doonto gobolka Awdal islamarkaana ay soo dhisaan iyadoo halkaasi la sheegay inay diyaar u yihiin reerahan in ay ka fuliyaan weerar gaar ah oo ay ku garab siinayaan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya sidii looga hortagi lahaa ee Somaliland. qorshayaal halis ah oo halkaasi ka socda iyo beesha ciise ayaa la sheegay inay iyagu diyaar u yihiin in naftooda ay u huraan sidii Soomaaliya gobolka Awdal mar kale looga soo dari lahaa iyadoo ay sii socon doonto soo goosashada ee maamulka ee Somaliland ee halkaasi islamarkaana maamul loo qaybanayo. qorshaha halis ayaa socoto beelaha Samaroon iyo ciise ayaa loo balan qaaday in halkaasi soo goosaan iyadoo kulamo adag la qaatay ee ugaasyada kala beesha ciise iyo si lamid ah ugaaska ee beesha Samaroon kadib markii madaxweynaha qaranka Soomaaliya u balan qaaday haddii gobolkaasi ay soo goosaan labada reerood oo kaliya ay lahaan doonaan islamarkaana awoodda ugu badan ee halkaasi ay iyagu ka talin doonaan dhinaca kalena awood qaybsigu si siman ay u qaybsan doonaan ee labada reerood laakiin taa bedelkeeda loo baahan yahay nafurid inay sameeyaan islamarkaana ay ka hortagaan ee dowladda Somaliland hogaamiye Cabdiraxmaan Ciro dhinaca kalena ay ka shaqeeyaan sidii Somaliland inteeda kale loogu soo dari lahaa ee Soomaaliya. waayahay daawadayaal haddii nagu cusub tahay nagu soo biir like share garee muuqaalka subscribe channelka asxaabtada sii gaarsii aynu gudagalno. reeraha kala ciisaha iyo Samaroonka ayay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gaar ahaan odayaasha labada reerood ayay kulan khaas ah oo la qaateen madaxweynaha qaranka u balan qaaday in loo baahan yahay in markaan ay tahay inay iska dulqaadaan ee dulmigii dhowrka sanadood ay ku hayeen reer Isaaq sabarkaana loo sheegay in markaan culayska iska dulqaadaan dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u balan qaaday in Awdal Ised ay noqon doono dowlad iyagu gaar u ah samarkaana xor ay u yihiin laakiin ay hoostagi doonaan xukuumadda federaalka Soomaaliya sida maamulada kale awood qaybsigana labada reerood ay lahaan doonaan taasoo ku sheegay madaxweynaha Soomaaliya in awoodda ugu badan ee maamulkan kaliya uu ka shaqeyn doono reeraha beesha ciise iyo si lamid ah ee Samaroonka iyagoona u sheegay in loo baahan yahay markaan ay iska dulqaadaan dulmigii 30 sanadood uu ku socday. madaxweynaha qaranka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u balan qaaday difaac inuu siin doono sabarkaana hub iyo saarad military iyo agab kasta ay u baahan yihiin inuu ku deeqi doono reerahan haddii dagaalka jiid hore ay ka galaan. dhinaca kalena ciisaha ayaa markii ugu horeysay soo bandhigay ee gawaarida gaashaaman iyo gawaari hub tirabeela iyo si lamid ah ciidamo infantry ah kuwaas ay ku muujiyeen in mar kale diyaar u yihiin inay dowladooda ay garab istaagaan iyadoo ciidamadan oo beesha ciise uu taageerayo beesha gaar ahaan uu ka dhashay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele uu la garab taagan yahay hub iyo lacaga tirabeela isagoona sheegay inay la shaqeeyaan ee dowladooda Soomaaliya dhulkaasina ay leedahay Soomaaliya samarkaana Soomaali oo la kala jara ay saraali ka heen. qorshahan halis ah oo beesha ciise ay hogaaminayso ayaa la sheegay inay ku qanacday halka beesha Samaroon iyadoo ay hayaan reerka ciise laakiin la sheegay inay diyaar u tahay iyadoo laftirkeeda inay qaadato ee maamulka madax banaan ee midka Somaliland dhinaca kalena hoos imaanayo xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. beelaha Samaroon iyo ciise ayaa loo balan qaaday inay kala goosan doonaan ee maamulkan iyagoo labada reer oo kaliya ay noqon doonaan labada reerood ee uga awood badan ee maamulka xaqoodana si siman ay u qaadan doonaan reeraha ka soo harayna ay qaadan doonaan kuraasi yaryar halkaasi tiila iyadoo loo sheegay in Awdal Ised uu noqon doono dowlad ka madax banaan ee Somaliland samarkaana ay noqon doonto mid hoosagta xukuumadda qaranka ee Soomaaliya ayna la mid noqon doonto dowladaha xubnaha ka ee federaalka Soomaaliya. qorshahan ayay wadaa xukuumadda Soomaaliya hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii halkaasi u tagay Laascaanood caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka oo waqooyi bari ee Firdhiye. qorshahan ayaa la sheegay inay diyaarisay xukuumadda Soomaaliya inay ka soo shaqeynaysay in muddo sidii labada reerood la isku keeni lahaa islamarkaana lagu qancin lahaa in halkaasi ay qabsadaan sidii ay u qaybsan lahaayeen awoodda ee maamulka Awdal Ised iyadoo madaxweynaha dowladda ee Somaliland Cabdiraxmaan Ciro oo reerka Samaroon uu ku dhiirigelin jiray sidii u fulin lahaayeen weerar gaar ah oo ka dhanaa ciise maadaama iyagu ay ku yihiin cadow gaar ah ay Somaliland cadow ku yihiin markaan ay doonayaan kaliya midnimo Soomaaliya wax la yiraahdo laakiin Somaliland
ay doonayso inay hesho qarannimo madax bannaan. wuxuu sheegay Cabdiraxmaan Ciro oo u sheegay beesha Samroon ugu digay in mar kale ay qaataan afkaarta shisheeyaha ee Soomaaliya, isagoona ugu digay inaysan aqbalin natiijada iyo waxa talaha lagu siinayo oo ku saabsan arrimaha Somaliland inay jartaan ee gobolka Awdal Eseed sidii ay ugu biirin lahaayeen ee dowladda Soomaaliya. reeraha beesha Ciise iyo Samroonka ugaasiyadooda ayay si toos ah khadka taleefanka kulan adag kula qaateen madaxweynaha qaranka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo madaxweynaha ku booriyay inay soo goostaan ee gobolkaasi isla markaana diyaar u tahay xukuumadda Soomaaliya sidii ay u taageertay dowlad goboleedka Waqooyi Bari inay iyaguna garab ugu siin doonto sidii mar kale halkaasi looga asaasi lahaa Awdal Eseed iyo inay noqoto dowlad madax bannaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugaasiyada u sheegay xaaladihii adkaa ee soo martay dowlad goboleedka Waqooyi Bari dad badanna ay kaga dhinteen reerka dhulbahaate, isagoona u sheegay in loo baahan yahay inay sameeyaan adkeysin ay muujiyaan go'aankoodana ay ku adkeystaan in Awdal Eseed waxa la yiraahdo halkaasi laga asaaso, isla markaana dowladda Soomaaliya diyaar u tahay inay la garab istaagto af iyo hiilba, dhinaca kalena ay siin doonto hub ay ugu deeqi doonto sida iskaga difaaci lahaayeen maamulka gooni-goosadka sida madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay. qorshaan culus ayaa la sheegay in beesha Isaaq ee xukunta iminka Somaliland ay ka hortagi doonto isla markaana diyaar u tahay sida iskaga difaaci lahayd qorshaha dowladda Soomaaliya iyo labada reerood ee Samroonka iyo Ciise oo ay wadaan qorshaha halis ayaa la sheegay inay qorshaan ayaa la sheegay in reerkaasi oo ay wadaan reeraha Ciise iyo Samroonka ay dhibaato adag ku noqon doonto inay ka armiyaan Isaaq ee Somaliland. Cabdiraxmaan Ciro ayaa kulamo adag la qaadanaya dadka deegaanka Awdal, isagoo u sheegay in loo baahan yahay in laga hortago fikradan iminka ka jira. dhinaca kalena u sheegay in halkaasi laga bilaabo dhaqdhaqaaqyo sirdoon oo lagu filinayo mishimo gaara iyo dad gaara lagu beegsanayo, kuwaas lagu beegsanayo inay ka mid yihiin xukuumadda Soomaaliya ay halkaasi ku metelayaan, dhinaca kalena ay u ololeynayaan sidii halkaasi looga asaasi lahaa dowlad goboleed la yiraahdo Awdal Eseed. Cabdiraxmaan Ciro ayaa wada kulamo adag oo la qaadanayo odayaasha dhaqanka ee Somaliland, isagoona u sheegaya in loo baahan yahay in waqtigan ay tahay waqtigii laga hortagi lahaa dhaqdhaqaaqan ee halkaasi ka jira, isagoona u sheegay in loo baahan yahay in odayaasha garab ay ku siiyaan ee Somaliland sidii looga hortagi lahaa gebi ahaanba dowladahan ay reerahan ay doonayaan Awdal Eseed waxa la yiraahdo inay halkaasi ka asaasaan isla markaana aysan ahayn wax soconaynin, iyadoo iminka xaaladda lagu sheegay inay tahay mid cakiran gebi ahaanba aysan noqon doonin wax soconaya. ayaa la sheegay in ay ka taagan tahay mar kale caasimadda Hargeysa iyo guud ahaan Somaliland cabsi aad u xoogan in Awdal Eseed laga soo jaro kadib markii Waqooyi Bari ay ka soo gooseen, ugu dambeyntiina loo caleema saaray dowlad ka tirsan ee xukuumadda ee Soomaaliya, taasina ay noqon doonto Waqooyi Bari inay hoosagto xukuumadda Soomaaliya. mar kalena waxay cabsi xoogan ka muujinaysaa in haddii Awdal la jarto ay dhibaato xoogan ka noqon doonto ee maamulka ee Somaliland, kuwaasoo ay cabsi xoogan ka qaba in wadamada soo hartay ay aqoonsin waayaan maadaama hal reer oo kaliya kusoo koobmi doono halkaasi, iyadoona ay sheegeen taasi loo baahneen, laakiin reerahan kale dhammaantoodaba la iskugu hayo ee maamulka iyo dowladda ee Somalilandba sidii mar kale loo heli lahaa aqoonsiyo kala duwan oo kaga yimaada adduunyada dacaladeeda.